بسم الله الرحمن الرحيم magacaygu waa Maxamed Xasan Gacayte waxaan ku dhashay magaalada Burtinle waxbarashada asaasiga ilaa heer dugsi sare waxaan ku qaatay isla magaalada Burtinle 2015 ayaan aaday jaamacadda magaalada Boorama oo aan ka diyaariyo kulliyadda dhaqaalaha iyo siyaasadda sidoo kale waxaan isla Boorama ku dhameeyay kulliyadda maareynta mashaariicda buugga aan qoray magaciisa waxa la yiraahdaa fahanka midnimada wuxuu fahansiinayaa ummadda haddii ilaahay idinkeeda leeyahay erayga midnimo oo micno weyn xambaarsan waxaan qorayay buugga muddo 2 sano iyo 4 bilood waa buuggii ugu horreeyay Soomaali ku qoran oo ka hadlaya waxa la yiraahdo midnimo sidoo kale waxa kooban oo aad u yar buugaagta ka hadla midnimada guud ahaan dunida oo dhan wixii ugu adkaa oo caqabada oo buugga kala kulmo waxay ahayd intii aan qorayay oo dhan in aan waayay wax mowduuc ka horeeyay midnimada oo kayga ka horeeyay oo ka hadlay waxay igu noqotay caqabad aad u adag muddo sanad iyo dheeraad ah waxa igu qaadatay inaan xogta buugga aan gelinayo aan raadiyo oo aan soo aruuriyo sanadna waxay igu qaadatay inaan buugga dib u habeyn ku sameeyo tifaftirkiisa sameeyo soona daabaco buuggan sida ay ogtahay ama ka muuqata ciwaankiisa wuxuu ka hadlayaa midnimo erayga midnimo haddii la micneeyo wuxuu ku soo koobayaa guul marka wax weeye la rabo wax loo baahan yahay in wax la qorsheeyo in waxa la weeye la kulmiyo awoodo badan oo kala duwan wax loo baahan yahay in la mideeyo wax kasta oo la heli karo sida taariikhda dhaqanka haddii la ku soo mogol yahay xoogga maalka diinta wax kasta oo ummadii ay leedahay haddii ay mideyso oo ay mid ka dhigto waxay gaaraysaa guul aakhiro iyo guul adduun labadaba si marka ummadda Soomaaliyeed ee kala tagtay meelaha kala duwan ku nool waxa weeye mantiqada ay ku nooshaayna karaamadu kaga dhacday ay u soo kabato heerka ay maanta joogtana ay uga baxdo waxaan u baahan yihiin inay fahmaan midnimo arintay u dhalisay inaan buuggan qorana waa in aan ummadda Soomaaliyeed fahansiiyo waxa la yiraahdo midnimadu ma ahan inay hal wadan noqdaan oo kaliya midnimadu ma inay gobol kaliya noqdaan midnimadu waxay noqon kartaa midnimo dhaqaale waxay noqon kartaa midnimo siyaasadeed waxay noqon kartaa midnimo diin iyo dhaqan oo ay Soomaaliya wadaagto waxay noqon kartaa midnimo bulsho oo ay Soomaaliya wadaagto inagoo intaas oo dhan wadaagna haddana inaynu waxa weeye fahmi weyno erayga midnimo waa wax aad u adag weeye waana wax laga xishoodo runtii waana arintay ku dhalisay inaan buuggan qoro buuggii ugu horreeyay oo aan qoro waxaan bilaabay qoridiisa 2016 bishii March soo gabagabeeyay bishii May 2018 sanadkan ku jiro bandhig toos ah oo aniga especially aan qabanin laakiin waxa qayb ka ah buugaagta lagu soo bandhigay waan kala qayb galay carwada bandhiga caalamiga ah ee Garowe bishii July sanadkan qorayaasha Soomaaliyeed ama qorayada Soomaaliyeed guud ahaan waxaan waaway horta diraya salaam baahsan dardaaranka aan u jeedinayaa wuxuu yahay in ummadda meelaha ay ka liidato oo midnimadu u horeyso oo waxa weeye wadaniyadu u horeyso oo haddii la ku soo mogol yahay u horeysa ganacsigu haddii la ku soo mogol yahay isku tashiga iyo isfahanka bulshadu inay wax ka qoraan ummadana u soo bandhigaan waxa jira buug badan oo Soomaalidu ay qortay sanadadii ugu dambeeyay laakiin waxaan kula talinayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed in buugta la qorayo laga hadlo lagana qoro mowduucyada waxa weeye asaasiga waa ummadda oo ay midnimadu u horeyso hiigsiga anu aan leeyahay ka Maxamed ahaan waxa weeye in waxa weeye ummadda Soomaaliyeed waxa aan u soo bandhigay ay fahmaan haddii ay fahmaan ummadda Soomaaliyeed hadafka anu aan ka leeyahay waxa weeye inay gaaraan guul waxa weeye in haddii la ku soo mogol yahay ay midoobaan ay walaaloobaan ay yeeshaan waxa weeye wadan ay yeeshaan haddii la ku soo mogol yahay isku tashi ay yeeshaan tartan ay caalamka kula tartamaan sida aynu ognahay Soomaalidu waxay leedahay taariikh goona waxay leedahay ganacsi iyo dhaqan goona haddana waxa weeye waxaynu ka midnahay bulshooyinka caalamka gaajada ugu leecanaya kuwada ugu tiro badan inay ka gudbaan waxa in Soomaalidu mid noqoto in Soomaalidu waxa weeye isku tashadaan in Soomaalidu haddii la ku soo mogol yahay ay yeeshaan hadaf qura oo wax ugu muhiimsan buuggan hadafka aan ka leeyahay intaas waa hiigsiga aan hiigsanayana waa in ummadda caalamku guud ahaan iyo ummadda Soomaaliyeed ay fahmaan erayga la yiraahdo midnimo fariinteeda ugu dambaysa oo aan diray waxa weeye in ummadda walaalowdo in ummaddu waxa weeye mid iyo waxa weeye hal mid oo qura ay isku noqdaan in ummaddu haddii la ku soo mogol yahay ay isku tashadaan in ummaddu waxa weeye iskaashadaan inay isxigsadaan in Ilaahay ka cabsadaan inay cadaalad isku sameeyaan in haddii la ku soo mogol yahay Soomaalida beelhoofka ee meel walba taagan ee gaajada u dhimanaya ee iyagoo xoolaha la arkay la abaaruhu leynayaan biyo la'aanta waxa weeye ku hayso dhulkoodii
ayagoo haddana webiyadu aynu inoo buuxaan dhulka hoostiisu inoo buuxo badda dheer inta la arkay aynu leenahay inaynu waxa weeye u midowno sidii aynu khayraadkeena uga faa'iidaysan lahayn sidii aynu awoodeenna gaar ahaaneed ee shakhsiyaadka iyo aqoonta iyo waxa weeye xoogga iyo cilmiga ku dhisan oo ilaahay ina siiyey aynu uga faa'iidaysan lahayn sidii aynu u baraarujin lahayn awoodaha gaarka ah ee aynu leenahay sidii aynu uga faa'iidaysan lahayn goobta istiraatiijiga ee positionka aynu degannahay caalamka ka naallo ee bariga Afrika maanso anigu aan leeyahay oo maxamed haanan sameeyey ma jirto laakiin gabiyaa Soomaaliyeed oo la yiraahdo maxamed muumin ababe wuxuu yiri isagoo midnimada ah weeye tilmaamaya gabay ka tiriyay gabayga waa dheeraa laakiin waxa kamid ahaa ummadaha shirgoobe adduunyada ku shiraya midnimo shifaysteen marka waxaan leeyahay Soomaalidu inay midnimo shifaystaan ayna waxa weeye ka tashadaan caqabadaha hortaagan oo ay iska weeye horleexiyaan waxa kaga gudbi karaan ay tahay midnimo iyo inay walaaloobaan waxaan u mahad celinayaa runtii qurux badan oo waliba dhiirigelin lagu mahad celinayaa halmaal media oo ummadda waxa weeye u haysa shaqo adag boos fiican oo banaanaana buuxisay waxaan rajaynayaa inay wax weeye horumar ku sii sameeyaan tabintooda waxaan u rajaynayaa guul waarta ilaahay idin la garab galay idinkana aad baa u mahadsantihiin